halgan kanu uu guuleysan waa xaq kumayaal baa u shahiiday oo agoontooday oo naafowday oo gablantay waxa xaqiiqo u tihiin oo ogtihiin maalin walba dhacda kuwa 20 sano 10 sano 15 sano aasnaa oo la soo saaray ciid culin maalin walba dhacda waxa u dambeeyay Cabdicasiis Ibrahim Caali badcun naxariis Allah si oo qabdaha laga soo saaray Maxamed Basay iyo Cabdullaahi Guud Cadi Sheekh Cabdiciis waa ifrdeen Mustafa Haybe waxa weeyaan mardaale lixii hadda maalin dhawaan ka soo saaray ciid ma cunin jaakeedkii iyo tasbixii iyo alaabtoodii lagu aasay iyagu qaba la soo baxayaan kuwaas ay biinilaahi kariim ilaahay idinkii dhiigooda ma khasaariyo oo dagaalamaya agoonta aan qaan gaarin iyo hooyooyinka gablamay xaqoodu bay la habi maayo hadii adoo wadankii ugu sareeya wax sharci daraa ama aad dhinac saarto ama aad soo dhaweyso ama aad waxa weeyaan aad qayb ka noqoto haddana la dhaho nabadii hala ilaaliyo oo waxa weeyaan xasiloonida hala ilaaliyo arintaas waxay ka dhigan tahay qoladii dibka badnayd xilligii TPLF intay ruuxa indhaha ku dhuftaan oo diinta caayaan dhigi jiray sharciga ilaali oon ariftu waxa weeyaan intay nabadda jeceshahay in bay nabadda jeceshahay haday nabadda oon ariftu weydo hatta marka dambe nabad qaata laguma karaba waxa ogay intii madaxweynaha ka horeysay wax walba la lahaa ee wada heshiis laga galay aad baan u qasbay mashir oon arif ya xubin Itoobiya iyo qayb ka ahaani oo saxi oo hagaajin shaqadiisa ma aha waa arin aad u la yaab leh nabadda wanaageeda nabadda saan u naqaano adigu ma taqaan wasiirada uma yaqaanaan hogaankaagu uma yaqaano maamul wax colaada wax ka arkay ragii hore ee soo dagaalamayay ma jiro in kan xeerka ururka marxato ah wixii xeerka ururka ka bedelan waa in ka digaya saaxiibada baa tihiin agteeda sharaf baad ku leedahay agtiina sharaf baan ku leeyahay waa in ka digaya sidii kuwii shalay iyagoo libaxaya bisada noqonina walaalayaal waxaan ka wadaa ururka ONLF xeer buuleeyahay nidaam buuleeyahay sharci buuleeyahay wixii nidaam iyo xeer waxa leenahay aan Itoobiya xataa lahayn deegaan iyo iska daabaalka Itoobiya xataa lahayn adiga ragii ka doday ee dawladda saluugay bilowgeediiba ku dhawaaqay dawladda san iyo madaxweynayaasha away bartikoolkaaga away bisle hadda dagaal caadi oo suuga iyo saneefalkiisa markii la dhacana waa naqanaa nabad caadi oo la isla qaato taan kugu soo dhaweynay saxaabada kugu ruuxaynay deegaanka isbedel baa ka yimid aan lahayn waa la yaqaanaa bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum aad barni salaam haya bulshada Soomaaliyeed bulshada heerogaadeen iyo meel kasta joogtaanba ee deegaanka aad barni salaam haya waa Suldaan Cabdi Axmed Taray oo ku magac dheer Suldaan Laangare laba saddex kalmadood oo aan si fikirkayga aad bay muhiim u yihiin araahad baan maanta tamayna wariyaha la wadaago soo gudbinaya insha Allah madaxda deegaanka iyo waxa weeyaan mas'uuliyiinta ururka iyo shacabka inaan la wadaago aan jecelahay xogaa maskaxdayda ku soo yar noqday ومدة كوبادي وحاول ديجانك مدحوينها ديجانك مصطفى محمود عمر يقولي يسوي السير هذا هي ما مركيسة دمامبا وحلينا هاي أو أسرع سيجارة وعصنا وقولنا قد بينا يفرين تيدا shaqada ururka ONLF shaqadiisa iyo ku dhex jirida shirinta ka qaybgalka iyo mar walba hawlaha macnaheedu waxa weeyaan mar walba lagu soo eedeynhayo ama waxa weeyaan qayb badan ay ka muuqdaan fadlan waxa leeyahay madaxweyne deegaanka madaxweynaha ka tahay waxaan saa u leeyahay tusaalaha u bixinayaa wax walba wuxuu leeyahay xeer iyo nidaam iyo qawaaniin waxay dawladeena ku dhisan tahay oo ururadu ku dhisan yihiin cid walba ay ku dhisan tahay sharci iyo nidaam iyo kala dambeyn baa jirta haddii
adoo wadankii ugu sareeya wax sharci darraa ama aad dhinac saarto ama aad soo dhaweyso ama aad waxa weeyaan aad qayb ka noqoto haddana la dhaho nabadii hala ilaaliyo oo waxa weeyaan xasiloonida hala ilaaliyo arintaas waxay ka dhigan tahay qoladii dhibka badnayd xilligii TPLF intay ruuxa indhaha ku dhuftaan oo diinta caayaan dhigi jiray sharciga ilaali waxa sharciga ilaali qofka ruuxa inta beerka laga laado diinta la caayo waxa la dhigi sharciga ilaali wariya tiyo kale ka dhiganta waxaan soo qaadanayaa tusaalahan ugu soo qaadanayaa madaxweynaha deegaanka imisa cid oon kugu qanacsanayn oo wax diidan oo wax tabanaysa joogto way farbadan tusaale haddaan soo qaato away garabkiisa xitaanka BB ee hogaamada lahaa ee madaxweynayaasha lahaa ee kabineedka la xaq u kacay maxaa loo xidhxidhay maxaad ugu diidanay ilaa waxbay diidanayaan garab saxitaan aan sameeynaa way dhahan away madaxweynihii ninkii madaxweynaha sheegtay yimaadey hotelka Xasafaal soo degay khalar jikri iyo hogaankii iyo dawladda dhisneeda timaaday waxaan xustaa maalinka dad shacabahoo madaxweyne halka yimaada dawlad baa la dhisaya waxba la habeenay oo mirqaansan waxaan ku leeyahay waxaan aad mirqaansan waa sharci darre fadlan keenaysaa ha gelina badda aw xagee ku dambeeyeen imisa hadda diidan inay madaxweyne ahaato madaxweyne ahaato inaad macnihii ay xilka ama xilka ku socdaan ka qaataan ama maxaan ku dhahaay shaqo ku diidanaan ama hunguri kala hayo intee diidan in farabaan waxaan ka wadaa ururka ONLF xeer buu leeyahay nidaam buu leeyahay sharci buu leeyahay wixii nidaam iyo xeer waxaan leenahay aan Itoobiya xataa lahayn deegaan iyo iska daabaalka Itoobiya xataa lahayn sababta xilliga Hayle Salaase xeerkiisa waa la bedelo TPLF bedesho xilliga TPLF markii ku shaqeysay inta way bedesho BB baa la yiri koran baa dhisay laga soo dhigay wixii waa la bedelo kii yimaada waxaas la yiri ONLF waxay leedahay xeer maalinkii la aasay la sameeyay la dajiyay ilaa haddana wax laga bedel intii gudoomiye soo martay iyo inta soo mari doontaba xeer aan waxba laga bedelin baa leedahay wixii khaldama iyo wixii saxma iyo wixii leexsamana xeerka baa marka u dambaysa la isku la noqoni ka baan ku saxanaynaa hana kala dhexgelin hana dhexdhexaadinin hana heshiisiinin laakiin madaxweyne fadlan naga xishoodo ragii adiga ragii ka doday ee dawladda saluugay bilowgeediiba ku dhawaaqay dawladda san iyo madaxweynayaasha away bartikoolkaaga away bisle away madaxweynaha ninkii sheegtay yimaada hotelka khalar jikri nidaamka macnaheedu ama wax khaldan ama wax sax wax daran noqday ragii dawladda kamidka ahaa ee diiday ee hawsha kula waday kula shaqeynayay ee intay wax diideen wixii diiday xagee u kaceen waxa celiyay bas heeta sharciga qawaaniinka bas sharciga qawaaniinku hadii cid walba sharciga qawaaniina bay leedahay qaybta cidii gudoomiyaha ururka ONLF wax ka tabata ama wax khalad waxaysa ee diida xeerka ururka iyo nidaamka ururka ee jira saxda ay kula dagaalami kartaa kaasay kula doodi kartaa kaasay kula dagaalami kartaa sida baarlamaanka Soomaaliya hadda doona kuraasta saddex karaa waxaan sidii karaa xidhkanaga iyo kaymahanagi annaga kaad al xafiiska u furayso iyo kan waxa weeyaan aad leedahay waa heer magaciisi waa wada halgabayaal waa ONLF laakiin gacantan waxa weeyaan cadawga waan isku ognahay dagaal raggu wax rag isku ogyahay du saciilka aan ma kaan leeyid macnaheedu ma aha inaan cabanayo ee waxaan ka hadlayaa hadii dagaal waxa weeyaan aan isku ognahay oo lagu balaabay ma jiro laakiin dagaal hoose oo jini oo minjaha nin waxa la yiri heer jareed aad baa la yiri roob qublo oo farabadan jiyaa qacana waan aqaanay quble roob barwaaqana waan aqaanay qublahan ilaahay isla barteen huwan anigu ma garanayo wiibaa la yiri nin heer jareed ah hadda dagaal caadi oo suuga iyo saneefarkiisa markii la isla dhacana waan aqaanaa nabad caadi oo la isla qaato taan kugu soo dhaweynay saxaabada kugu ruuxaynay deegaanka isbedel baa ka yimid aan lahayn waa la yaqaanaa laakiin noocan marjafka waxa weeyaan habeenkii la guura galiyay kolba qolo dhab xagga kale dhaqankaas dhaqan ma aha waxa weeyaan dhaqan sax ah ma arko waxaan leeyahay marka madaxweyne
haddii ilaahay kugu anficiyo haddii kugu anfacayninba waxaa adigu iska leedahay maalin aan maanta ahayn yaad ururka oo alif iyo taariikhdiisa ku faani doontaa marar badan bad hadda waxa weeyaan qabiil iyo waxyaan sax ahayn waxyaabo ku sheegtaa oo waxyaabaha dhiba ka mid ah laakiin dib ma laho madaxweyne deegaan oo la keeno ninba siba ula dagaalama adigu sidii ugu inkaarayd baad noola dagaalamaysaa maraad xaafad ku sheegtay iyo maraad waxa weeyaan liid kala soo raacdaba waxaan leeyahay marka anoo daba socdo saaxiibadaydii maalmo lahaana kala dhexgalay iyo kuwii shirkii maalin weyta muuqday ee dhex fadhiday ee waxa weeyaan qaybta ka ahayd oo kale aad baan u qasbay mashir oo alif yaa xubin Itoobiya iyo qayb ka ahaani oo saxi oo hagaajin shaqadiisa ma aha waa arrin aad u la yaab leh nabadda wanaageeda nabadda saan u naqaano adigu uma taqaanin wasiirada uma yaqaanaan hogaankaagu uma yaqaano maamul wax colaada wax ka arkay raggii hore ee soo dagaalamayay baa jira inta dadka inna waa qurbo joogna waa dhalinyarada waxa deegaanka jooga nabadda macaankeeda ninkii colaad yaqaanaa nabadda macaankeeda yaqaana wax kasta oo leexrana colaad buu keenaa inta colaadda nabadda lagu jiraana waxa weeyaan wax la damiyay haday colaado bilaabato oo ariftu waxa weeyaan intay nabadda jeceshahay inay nabadda jeceshahay haday nabadda oo ariftu weydo hatta marka damba nabad qaata laguma karaba waxa ogay intii madaxweyne ka horeysay wax walba la lahaa ee wada heshiis laga galay waxa tahay waxaan ku khatimayaa madaxweynihii deegaanka ugu nasiibka badnaa een saneefar iyo suug midna ku soo dhicin baata waa madaxweyne ugu nasiibka badnaa baata har noqonin madaxweynihii ugu nasiibka xumaa aad baan uga cabsi qabaa inaad noqoto madaxweynihii ugu nasiibka xumaa ee meesha ugu xun kaga tagay inaad noqoto aad baan uga cabsanayaa madaxweynihii dadka oo dhan gacanta u taagay ee lagu soo dhaweeyay haddana nabad wadankii inuu ku haga la rabo yaa tahay aad iyo aad arintaas uga feeyignow midda kale halka qodob kale waxa weeye saaxiibadii halganka ragii sharafta lahaa ee naxbada sala ku soo jireen soo garanay intooda badan ragga lafta ee saxda ee wax diidan ama wax ka dadka soo garanay intooda badan inta dee bugta raacay waxa weeyaan ku badina waxa weeye iyagu iska joogaan baan leeyahay iyagu kuwaas iyo raali iska ahaadayay waxba meesha uma yeelaan saaxiibadayda waxaan leeyahay xeerkii ururka ee inuu ku nabarteen ee qoran in la bedelin laga guurin ee ballanta ku galay shuhadada iyo naftoorayaashu inaga tageen wixii khaldan ka baa lagu sixi maaday haduu waxa weeyaan khaldan yahay haduu si sax ah wax u maamulay aan u maamulin hadii aan waxa weeyaan xiligiisi ay gaadho inaan doorasho gal la rabo xeerkii ururka wadadiisi ka baan maraynaa oo wax ku saxaynaa in kaan xeerka ururka marxaati u ah wixii xeerka ururka ka bedelan waa in ka digaya saaxiibada baatiin agteeda sharaf baad ku leedin agtiina sharaf baan ku leeyahay waa in ka digaya sidii kuwii shalay iyagoo libaxiya bisada noqday bisada noqonina walaalayaal naftooda hore heli kara ummadda Soomaaliyeed inay mid u ahaato gurigooduna gurigiisa wada ahaado hantigooduna hantigiisa wada ahaado hadduu dhintana inta fiican oo dhan hal mar wada duceeyaan inuu noqdo heer Itoobiya laakiin dhinaca saar heer buu noqon wali marka u dambayso ka saayaan daraan heer inuu noqdo sax ma noqonayso waxa imaan doonta bari rag libaxiya oo bisada noqdo macaani hogaaminta ururka laga tabanayo xeerkii ururka iyo wadadiisa iyo sharcigiisa inagoo gola goob jooga cid walba ay joogto kaasa lagu sixi wixii ururka khaldayana banaanku inaga yahay hadii arinta laga leexiyo waxa imaani in nin walba uu ku fashilmo waana isla garanaynaa shuhadadii agoontii naafadii waxayna raali ka ahayn waxay Itoobiya raali ka tahay waxay kala raali ka yihiin wax farax galay Itoobiya iyo waxaan ku dhahay cidii u adeegta agoonta iyo shuhadada ma farax galinayo anagoo naafada anama farax galinayo waxaan farax galinaya waxa iyaga ay diidan tahay waayo waxa iyadu diidan tahay waa wixii gabadhnimo doonku rabo waxa saafa ya iyada aan farax galin marka waxaan leeyahay saaxiibaday waxaan leeyahay wadadaas tii aan wax ku sixi jiray ma aha ka soo celiyo waa mid shalay mar walba imaan jirtay ka soo celiyo
waxaa tusaale yar soo qaadanayaa sheekada dhex gelinaya nin saaxiibka ahaa oo la dhigi jiray Sheekh Shaafi oo amaaduyaha markaa waxa weeyaan qaybta danab ahaa iyo Cabdikariin Sheekh Muuse isku dhicin waa Cabdikariin halka hadda waxa weeyaan hadalladii inta badan ku socdaan waa isqabteen iyagoo xaalad isku qabtay xilkii baa laga qaaday Sheekh Shaafi bedel qayb kale la yiri iyo naqab xaalad isqabashan ahayd Sheekh Shaafi maalinka dambe aad u sheekaysanay wuxuu yiri meelahaasaan saaka iyo halka waan iskaga tagay ninkaasaan uga tagay halka Cabdikariin xaalad badan buu ka sheegay wax badan buu ka sheegay waxaan ku yiri Shaafiyow hadda labadii way nool yahay waa noolaa waxaan ku yiri haddaad Cabdikariin halganka uga tagto cilad asaga ah haddaad uga tagto waxaad noqoni bari dabaqooni halganka ninka ku soo hadhay baan gubernimo doon noqon iyo wadadiisa xeerka iyo sharciga ururka kula dagaalam wixii khalad ee sax ah oo ka taas ka raadino haleexanin aad baan uga taliyay 2 toddobaad kadib iyo saaxiibkay qabdaar iska dhiibay 4 bilood 5 bilood kadib 6 bilood meelaha kadib asagoo korneelana Koonfur isku xabadaynay anigii iyo asagii labada nin saaxiibadaas ay hadleen yaa isku xabadaynay waxaan saalo uga soo wataa wadada halganka iyo ururka iyo xeerka cidii ka weecata ee wada kale intay way saxan tahay isdhaada wadada wax ku raadisa ayadana hadda xumaanba wadin wadadaas haday wadada Itoobiya ku dhacdo خلاص waxa weeyaan heshiiskanu wuxuu ahaa in aan ku helo xaqeena haddaan ku weynana inaga oo quwadeysanay oo wax noqonay wadadiisii aan ku ridno kaasoo ahaa cidii wax gaar ah wadatay haday hogaaminta ugu sareysan tahay haday u hoosatay iyada gaar u tahay oo dhibic kor saaran tahay waana khaainimo cid wax gaar ah wadatay laakiin saas buu ahaa waxaan marka la idin sheegayaa shacabka iyo dhalinyarada iyo bulshada heerogaadeeniya halgankan uu guuleysan waa xaq kumayaal ba u shahiiday oo agoontooday oo naafowday oo gablantay waxa xaqiiqo u tiirad ogtiina maalin walba dhacda kuwa 20 sano 10 sano 15 sano aasnaa oo la soo saaray ciid culin maalin walba dhacda waxa u dambeeyay Cabdicasiis Ibrahim Caarid badh naxariis Allah si oo qabdaha laga soo saaray Maxamed Basay Cabdullaahi Guud Cadi Sheekh Cabdiciisi waa ifrdeen Mustafa Haybe waxa weeyaan mardaale lixii hadda maalin dhawaan ka soo saaray ciid ma cunin jaakeedkii iyo tasbixii iyo alaabtoodii lagu aasabay iyagu qaba la sabaxayaan kuwaas ay biinilaahi kariim ilaahay idinkii dhiigooda ma khasaariyo oo dagaalamaya agoonta aan qaan gaarin iyo hooyooyinka gablamay xaqoodu bay la habi maayo janna fardowsana ilaahay idinkii rajaan ka sugaynaa ilaahay idinkii inaanu janna fardowso ku wada ciidno adduunkana ogaadeenyo xora yaan ilaahay idinkii rajo ka sugaynaa marka shacabka ha isdhiibina gobonimadiina dhalinyarada iyo aqoonyahanka iyo hooyooyinka iyo waxgaradka wixii qabada ee qalooxsan tilmaama ka hadla laakiin waa la kala yaqaanaa qof walba cadawgiisa nasteeciisa waan kala garanaynaa waad kala dareemaysaan wadada qodaxda oo fiirsada wadada Itoobiya jeceshahay in shacabkeenu qaado ama maamulka deegaanku jeclaado ama Itoobiya ay jeclaato in halganka lagu wado waa wadada qodxaha leh ee halganka hogabka ku ridaysa